diidoorbatulaha horweyn kuma tigaadhsheene tuurkama dhigteen caanihii tiica iyo laane tallaala ayaynaa reer afgaab tulid u soo dhaafo galabta oo bishu tahay 14 febraayo 1990 waxaan halkan ku duulayaa gabayo uu leeyahay buureed Jacfar Samatar gabayaagii la oran jiray ee reer galbeedka ahaa dhintayna 1980 gabayada oo ah kuwiisii hore oo sii horreeyey oo ku silin bilowga qarnigan kuwa ayaanu ka bilaabi doonaa jaaliga waxaan u hormarinayaa gabayga la yidhaahdo tallaalaay ama dhextaalkiisu yahay tallaalaayeyna reer afgaab tulid u soo dhaafo bilowgii qarnigan markii Soomaaliya loo kala tartamayay ayaa Ingiriisku isku dayay Afrikadii bari ee uu haystay inuu ku darsado dalka Waamo iyo Jubaland loo yaqaan ama dalka la yidhaahdo Ultra Jubaland xagga ka ah ciidamo taageera oo uu qortay ayuu qabaa'ilka waqooyiga Soomaaliya gaar ahaan Isaaqa ka soo kaxaystay halkaas uu markaa la haystay iyo markii horeysay kolkii dambana wuxuu ku guuleystay inuu Sariiley qabsado oo xarun ka dhigto dabadeed 1912 ayaa Ingiriiska dagaal lagu qaaday qalqaalada dagaalkaas iyo fulintiisana waxaa iska lahaa nimanka cawliyahan la yidhaahdo iyo Cabdiraxmaan Mursal ama Xaaji Cabdiraxmaan Mursal oo duqa u ahaa Sariiley taliyihii Ingiriiska ahaa ee joogay waa la dilay wixii daarta u yimid oo xub iyo cunto u badnaana waa laga meersaday magaaladiina cawliyahan baa qabsaday Ingiriiskii intuu ciidamadii soo kordhiyey kana faa'iidaystay colaadda Mareexaanka iyo cawliyahanka kolkaa dhexdiina ayuu Mareexaanka garabsaday oo intuu hub u qaybiyey dagaal geliyey guuleed wuxuu ku jiray ciidankii Soomaaliyeed ee Ingiriiska la socday sanadkii 1915 ayaa cawliyahan laga soo dhacay geelal fara badan sida qolada iyaga ka midka ah ee reer afgaab la yidhaahdo Soomaaliya geelaa soo dhacday Mareexaan baa u badnaa inkastoo ay askar Isaaqayna ku jireen geeliyaa guuleed madax looga dhigay dabadeedna intuu saamiga ku dhuftay Ingiriiskii waan ogeyn ayuu tolkiis sidii baqaarsiiyey Ingiriiskii ayaa taa loo sheegay oo lagu yiri